عليكم ورحمة الله وبركاته سو دوادا halkan waa channelka Faaliya Dabi Cafe Media maanta waxaan idin hayaa warbixin oo xasaasi ah waxaan ka soo salaamayaa xilada qaxootiga Riyaxle waxa soo batay dhalinyaro yar oo 13 jir 14 jir 15 jir ah oo dhuuqay koola saaka subaxii magaalada xilada qaxootiga Riyaxle waxaan ku qabanay 4 dhalinyaro iyo 2 gabdho ah oo xashiish dhuuqay xashaan leeyahay dhuuqay kooladaas oo aan qabanay qaar way carray ilmi hal ayaan qabanay waan wareysanay wuxuu noo sheegay inuu xaafadda Riyaxle C5 uu degan yahay oo hooyadiisa iyo aabiis ay nool yihiin dugsiin uu dhigan iskuul uu dhigan marka ciyaal kale waxa jira oo yar oo walaalo ah oo gabdhaha ka jiraan oo ayagana suuqa tuugsada oo caba kooladan dhuuqo marka ciyaalkii ciyaal yar ayaa baray oo wiil yaroon oo 18 jir ayaa baray say noo sheegeen oo ka imaaday asalkiisa hore xaga dheer ka imaaday marka ciyaalkii waxa loo soo diray qaarkood waxbarasho yar ayaan qabanay kadibna waxaan dhahnay waan wareysanay meel baan la tagnay wax baan u gadnay waxaan dhahnay waan wareysanay warbixintu noo sheegay waxay ahayd in cunug waxbarasho loo soo diray oo ka soo dhuntay dugsiga iyo iskuulkii loo soo diray oo uu ka doorbiday inuu cabo bahashan waayo wuxuu dhahay bahashan ayaa fiican xaraara laga helaa wax buu sheegay cunug yar marka ala kulli xaal dadka qaxootiga ku nool xerooyinka Dhadhaab ifo xaga dheer Riyaxle waxaan u sheegay in ilmahooda ay la socdaan ay warbixintoodii ay la socdaan dugsiga markii loo diro ilmaha ama iskuulka loo diro inay dabagal ku sameeyaan ay raacaan ama soo fiiriyaan dugsiga markii loo diro hal saac kadib 2 saac kadib inaad ka daba tagto cunugaaga maadaama suuqii ay u taalo koola oo kooladii la dhuuqayo oo ilmihii la wado oo nin ilmi yar ay tababarayaan oo la wado oo dad ay ka yar ay arkayaan oo raacayaan oo maalin kasta la barayo koolada marka ilmihii waxa lagu garan karaa badanaa lama garan karo cunugii taxi soo galay istaagay bajaaj mooto soo galay xuli ee dogaaja haysa wax baa siisa koolo soo gadani halkaan u gashanay daabada koolaha intuu soo gashanay san ku saarantaas u dhuuqi lama arkay badanaa nin garanay oo nin kale ma arki karo marmar markay soconayaan waxay gashanayaan suraalkii luuqiisa la gashanay saasa loo socdaa marka kooladan xagee laga gataa way xagee laga gataa isbeer baatiska xerooyinka Dhadhaab ayaa laga gataa isbeer baatiska waxay hayaan koolooyinka isbeer baatiska waxaan u sheegaynaa inay ka gadin ilmaha under age oo raadinaya koolooyinka inay ka gadin fadlan waa naga codsi koolooyinka ninka ka gadaysa waa dad baskila ay koolo raastaan dad waxay u raastaan mooto dad gaari u raastaan waa sax waa ganacsi adaa leedahay laguma qasbi karo laakiin waxa isku dayaysaa cunugaaga waxaad ka reebi kartaa inaad ilmaha islaamka ka reebto oo ilmaha yar 10 jir 14 jir 13 jir aad ku qasabto hadii koolada loo soo dirsay ninkii u soo dirsay inuu asaga imaado waayo koola hadaa cunugga gado uu cabo dib bay leedahay ilmihii maskaxdoodii iyo rafaadkii iyo dib iyo khalaas ay keensanay marka waxaan kula daarmayaa in dadweynaha ku nool xerooyinka ay fiirsadaan ilmahoodii ay ka warqabaan ay ogaadaan inay dadka ku jiraan ilmaha koolada dhuuqayo iyo in kale ogow cunugaaga suuqas imaaw ilmaha safiiri raadi ilmaha ogow waxa laga yaabaa inuu ku jiro cunugaaga ka mid yahay oo ka warqabin oo dugsi kaaga maana iskuul kaaga maana laakiin maanta dhan suuq ku dhuuqay koolo ku dhuuqay adina ka warhayn marka ilmihii way soo bateen qariib 40 30 way dhan yahay waa la garanayaa dad la garanayo noocaan luqyaha waxay ku dhuuqayaan meelaha jalatooyin luuqada iyo meelaha shareemooyinka luuqooda ay ku dhuuqayaan keer darbigeeda diyaarada darbigeeda UN darbigeeda meelaha ku dhuuqayaan koolay wada wata kulligood lama dareemayo daabid uu ku shubay jacli intuu gashay shaati faraanad gashay uu dhuuqay ninkii cunugii waxa u maleynaa inuu iska socdo laakiin koolo dhuuqaya marka waxaan ku soo gabagabeynayaa in lala socdo ilmaha warbixintooda koolooyinka saad inay soo bandhigaan ficneed aan saan ka qaadnay waan ka soo tagnay soo iloway laakiin koolooyin badan aan ka qaaday oo caay ku jir qaar oo baashi sideeda ayaga ka shubanaayeen kulli waan ka qaaday waxaan ku soo gabagabeynayaa in dadkan dhalay ilmahan inay ogaadaan qaasatan blogga C5 la dhaho Riyaxle wiil oo C5 ka soo baxay jira wiilkaas waa nin wax hadda 14 jir inuu 19 jir waay wiilka wuxuu dhahay waxaan deganay C5 dugsi ma dhigtay iskuul ma dhigtay blogga C5 la Riyaxle aan deganay marka wuxuu dhahay kooladan waxaan dhuuqayaa adi qariib adi 6 bilood 7 bilood aan dhuuqayaa wadhay cidna iga warqabta cidna ma ogo adi at least markii dambe dad baa imaaday shaqada weynaatay Soomaali waa garanay meesha soo tuurtay wiilkii waa cararay si uu sheekeynay markii dadka baa u arkeen dad garanay loo arkay laga waa cararay marka waxa la rabaa in arintaas ka feejignataan waa igleen baa abixisaan video hada arkay share garee like saar subscribe saar
fadlan hala sheegay. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.